wixii waxaan samaynaya ciday ha noqotay wixii waxaan arkay samaynaya iyo waxaan hore u soo aragnay luqad aan luqada rasaasta ahayn oo garanayaan male wuxuu ku wajahan yahay waxaan iri qofka intuu nool yahay tawbuu heli karaa dambi kasta haduu soo galo qofka haduu nool yahay tawbuu helay laakiin qofka marka ugu dambeeyo dhimanayo haduu dambi si galo ku khatimo 100 nafood 200 300 oo ku khatimo taas tawba la'aan inuu tagay oo dambi waa weyn oo la tagay bay sheegaysaa tawbadu way furan tahay wa tuubu ila Allah jamii'an ayyuhal mu'minuun waxaan leeyahay tawbad keeno oo dhamaanteena tawbad keenana ugu horeeyo ilaahay baan u tawbad keenay oo tawbad keenaya mar walba nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinkii 100 jeer baan loo tawbad keenaa buu yiri riwaayad kale 70 kii 100 maayaan be taasay ahayd insha Allah ta'ala waxaan leeyahay baraaruga waad u jeedaan waxa meeshan ka dhacay oo hal daqiiqo la baabi'iyay boqolaal la leeyahay ama burbursan yihiin leeyahay tan oo kale hadii toosan aqli ku toosan diin ku toosan dhaqankii ku toosan ma aha tawbad keeno baraarugan leeyahay shacabku waxa la gudboon dadka daraad waxa meeshan ka dhacay sameeyay oo dadka daraasiin iyagoo allaynaya inay isugu tagaan oo iska dhiciyaan dawo kala male qof alla ka ilaahay ka cabso aan ka yeelaynin oo waxaan samaynayo haddana isla saxan waxa weeyaan waxay tusinaysaa taas hadii qofkaas wax ku dhiman oo kala male waxaan leeyahay horta marka hore tawbadkana waxaan iska daayay hadii ay yeeli waayaan ani waxaan leeyahay ummadan walba boqol baad u dhimanaysaane hal maalin hadaad dhaqaaqdaan inta idinka dhiman maysa waxaan leeyahay insha Allah ta'ala iska dhiciyo waxa noocan u dhaqmay culimada ilaahay wuxuu yiri la tubayyinunahu lin-nas dadkay xaq u sheegayaan waynu ku horkacayaan dadkuna insha Allah ta'ala waxa laga rabaa inay iyaguna raacaan oo dhageystaan ummada hoggaankeeda iyo indhaheeda weeyaan taasa marka laga rabaa dadku inay culimaduna way taagan yihiin dhalada waan fiirinayay telefisyoonka way hadlayeen culimo waaweyn oo ajilla oo Soomaaliya qiimo weyn ku leh hadlayay jazakumullahu khayr way wadaane waxaan leeyahay hal hadlo laakiin hal arin waan dareemay culimada oo dhan waxaan inay khaldan yihiin oo aan diin shuqul ku lahayn way u jeedaan laakiin hooga dhib baa jiro qaar badan baa war waxaan maxay yihiin hadaa tiraahdo waxay ku waa khaldan yihiin balaaya meesha ka dhacday laakiin banaanka intay soo istaagaan ma hadli karaan taas marka waxa la rabaa culimadii amaankooda in loo sugo oo way dhiiratay ma ogtahay qolada kalena in marka ay amaan rasmi ay helaan si iyaguna ay u hadlaan culimadii taladu way isku waafaqsan tahay laakiin in dhawaaqiiba ma ogtahay Soomaalidu war badan bay sheegaan waxay yiraahdaan dooliba tashaday bay yiraahdeen waa iska sheeko Soomaaliyeed marka yom kulaal baa nafta noo keentay maxaan sameeynaa markaas kii ugu roonaa baa yiri koor inta la soo qaado ama waxa la bahalkan jariska la yiraahdo waxa tiraahdaa qoorta loo suru yiri marka bootin iyo waxay wax ku dishaabuu yiri gabashe markay soo boodo koortiga dhawaaqayso waa kala yaacayna taladii waa isla gooyay laakiin yaa qoorta u suraya marka kii suri lahaa baa la waayay marka waxa la rabaa inay dadku dhiiradaan qoorta loo wada suro waxa kale oo jirta mahmaha Soomaaliyeed waxay dhahaysaa budaalo wal iska la qayliyay budaalo wal iska la qayliyay bimaana qoomiyo waa lagu wada qayliyaa leeyahay wax kale ma marka hadii qoomiyada in lagu wada qayliyay rabta ugu dambeyn marka toos baa lagu daawanay lagu dhigeysanaya fariintaada guud ee dadku u diraysaa maxay tahay anigu fariinta guud oo dirayo waxa weeye Soomaalidu inay midoobaan dantooda iyo dalkooda iyo diintooda ay u midoobaan ay u midoobaan oo garabka isqabsadaan khilaafaadkan kale intay janib iska dhigaan oo marba mooshin baa la sida leeyahay inta meel la dhigo ani waxaan arkayaa mooshinka dagaalka inay aadaan jazakumullahu khayr dagaal shaabkana hamar labada wixii waxaan sameynaya ciday doonto ha noqotay wixii waxaan arkay sameynaya iyo waxaan hore u soo aragnay luqad aan luqada rasaasta ahayn oo garanayaan male